waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay inaad u baahan tahay digital marketing. Bimatalan, haddii aad tahay qof leh business yar ama qof doonaya inuu sameeyo business hadda, si lamida sidaasna haddii aad tahay qof leh info, waxa loo yaqaan info waa dadka leh macaahida online-ka wax lagu baro ama sida online-ka tutorials-ka wax ku bixiya, ama sidoo kale qof leh blogger ama ha ahaado siyaasi ama saxafi ama ha ahaado dhakhtar, wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo wax loo yaqaan online presence. taasi waxay kugu waajibaysaa inaad sameysid digital marketing. waad u baahan tahay digital marketing sababtoo ah kuwa adiga kaa waaweyn ee kula tartamaya mar walba fiiri. tusaale, haddii aad tahay business yar, digital marketingku wax kaliya maanta isticmaala ee boqolkiiba 2 jibaar ku faa'iida waa businesska yaryarka ah. si lamida sidaasna waxa ugu horeeya isticmaala malaayiin lacag ku bixiya waa shirkadaha ugu waaweyn ee taqaanid maanta. مثلا shirkadda soo saarta baabuurta Toyota waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan digital marketing. shirkadda Qatar Airline, sidoo kale shirkadda Hyundai Motors, intaas oo dhan waxay yihiin shirkadaha ugu badan ee adduunka ugu waaweyn maanta ee isticmaala digital marketing. haddaba adiga oo leh business yar, carwo yar, sidee ayaadan ugu baahnayn digital marketing? su'aal kale ayaad isweydiinaysaa, waa maxay kuwa aad digital marketing uga baahan tahay inaad isticmaashid? digital marketing waxaan idhi waa ficil dhiirigelinaya in la iibsado badeecadaada ama adeegaaga iyadoo la marayo aaladaha internetka. aaladaha internetka aan soo sheegnay waxaa ka mid ah social media. su-aashu waxay tahay kuwee ayaad isticmaalaysaa? jawaabtu waxa weeye waxa ugu horeeya uguna sarreeya ee maanta waa platformska loo yaqaano kuwa ugu isticmaalka badan. bimatalan, Facebook waa aabka ugu sarreeya ee maanta lagu isticmaalka badan yahay adduunka. 2.3 billion qof ayaa active ahayd bishii la soo dhaafay ee Mars, kuwaasoo isticmaalayay Facebook. sidoo kale Facebook waa aabka iska leh WhatsApp iyo Instagram iyo Messenger. saddexdaas aab oo iyaguba leh platforms xaysiimeed oo kaa caawinaya ganacsigaaga inuu kobco. aabka labaad ee ugu casrisan ee la isticmaalo waa Google. sidoo kale waxa uu leeyahay YouTube 1.9 billion qof ayaa active ahayd bishii la soo dhaafay ee Mars, kuwaasoo daawaday billions videos oo la soo dhigay billion daqiiqana ku bixiyay inay daawadaan. su-aasha kale aad isweydiinayso waxaa laga yaabaa inay tahay qaabkee ayay xaysiinteedu ku gaari kartaa dadka. tusaale, maalin walba waxaad aragtaa post ay ku taalo sponsor markaad ku jirtid Facebook ama story-ga waxaad ku dhex aragtaa sponsor. si lamida sidaas, marka aad shidid video waxaa kaaga soo horbaxaya video yar oo aad tiraahdid escape. labadaasba waa labada qaab ee ay Google iyo Facebook u xaysiiyaan. si kale, si engine optimizing ugu weyn adduunka Google, haddii aad wax ku qortid bimatalan shay ama wax yar, waxa kugu soo horbaxaya waa isweydiinaysaa sababta ay ugu soo horbaxeen. taasina waa xaysiin ay sameeyeen dadka iska la alaabtaas oo kugu cadeynayo in ay tahay marka la sameynayo xaysiin. waxa ugu muhiimsan ayaa ah in xaysiintaada la tuso dadka saxda ah oo u baahan waxa aad xaysiinaysid. tusaale ahaan, haddii aad xaysiinaysid dhar ama cunno oo aad tusid dad aan u baahnayn dhar iyo cunno, xaysiintaadu simply way khasaartay. Facebook wuxuu kaa caawinayaa in xaysiintaada uu tuso dadka saxda ah u baahan, maadaama uu haysto algoritmkiisa caanka ah ee ku kala garanaya dadka iyo noocyadooda. sidoo kale, marka aad sameynaysid xaysiin, waxaa muhiim ah inaad sameysid oo aad ku xaysiid xaysiintaas muuqaalka saxda ah ee qofka soo jiidanaya kuna dhiirigelinaya inuu wax iibsado, una raacisid fariinta saxda ah ee ku habboon muuqaalkaas. Facebook algorithm waa midka ugu successfulsan uguna caansan marka la joogo xaysiimaha. si lamida sidaas, Google-ku wuxuu leeyahay algorithm caan ah oo kaa caawinaysa in businesskaagu ama ganacsigaagu uu sameeyo xaysiin online ah oo successful ah ama guulo weyn u soo heysiisa ganacsigaaga. kusoo dhawow digital marketing ama media una bedel xaysiintaada sales badan ama badan. waa mahadsantihiin.